الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا بما تحبه وترضى. waxaan bartamaha ugu jirnay barnaamijkii la magac baxay wax ka baro quraanka si wax ka ogaaw quraanka kariimka ah. waxaan soo sheegnay quraanka kariimka ah inuu yahay kalaam ilaahay, tacriif guudna waan ka soo bixinay. haddana waxaan hore u sii galaynaa magacyaha uu kitaabkan quraanka u leeyahay. magaca uu caansanay kitaabkan quraanka u leeyahay waxa waaye al-Qur'aan, inuu yahay wax la akhrinayo waaye wax carabka laga akhrinayo oo lafdan loo akhrinayo inuu yahay waaye horta magacii koobaad. kitaabka quraankana in badan ayay ku soo aroortay magaca yaasiin wal-qur'aan al-xakiim, qaaf wal-qur'aan al-majiid, in huwa ilaa dikru wa qur'aanun mubiin. magaca labaad ee kitaabkan uu leeyahay waxa waaye al-kitaab, inuu yahay wax qoran, waraaqado ku qoran uu yahay waaye. magacan kitaab mise wax qoran inuu yahayna in badan ayay ku soo aroortay sidoo kaleeto quraanka. wa innahu la kitaabun kariim xaamiim wal-kitaabi al-mubiin wa innahu la kitaabun casiiz. in badan ayay ku soo aroortay magaca kitaabka quraanka. aayadahaas iyo aayado badan baad ku ogaanaysaa. midda saddexaad mise magaca saddexaad ee quraanka waxaa waaye ad-dikr, waana murti ah oo aayad kastood akhrisaba wax baad ka ogaataa, fikir bay kugu dhalaysaa, wax bay kaasi ay ku dhalinaysaa waaye. magaca dikr quraanka in badan baa lagu sheegay. saadul qur'aani bidikr, laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum dikrun laka waliqowmik. iyo aayado badan ayaa lagu sheegay inuu kitaabka magaciisa yahay dikri, waana murti ah. magaca saddexaad mise magaca afraad ee kitaabkan quraanka uu leeyahay waxaa waaye tanziil, kitaab la soo dejiyey, alla xaggii laga soo dejiyey, jibriil loo soo dhiibay, nabi maxamed lagu soo dejiyey inuu yahay waaye. wa innahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu lamiin. muuqaalkeennii shalay ayaan ku soo marnay tanziil in badan ayay quraanka ku soo aroortay. tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim, tanziilu min rabbi alcaalamiin. magaca shanaad ee kitaabkan quraanka uu leeyahay waxaa weeye alfurqaan, tabaaraka aladii nazala alfurqaan. furqaan waxaa waaye xaqi iyo baatilka kala saara. kitaabkan quraanka aayad aan la geliyey waxay kuu sheegtaa waxaan waa wanaag bay ku tiraahdaa, masena waxaan waa xun inuu ka her bay ku tiraahdaa. taasina waxaa weeye alfurqaan, kitaabkan quraanka inuu yahay mid kala bixiya baatilka iyo maaragta xaqa mid kala saara inuu yahay. in badanna quraanka way ku soo aroortay tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdih. magaca lixaad waana magac ugu dambeeya aan sheegi doono inuu yahay magaca kitaabka quraanka. kitaabka quraanka wuxuu leeyahay magacyo fara badan. culummadu waxay gaarsiin ilaa 50 magac, laakiinse annaka kama gaarno. 6 magac ayaan ku soo gaabsanaynaa. 6 ayaa ugu caansan, in badanna quraanka ku soo aroortay ood ku arkaysaa meelo badan. magaca waxaa waaye alwaxy, in huwa ilaa waxyu yuuxaa. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku hadlayay iyo wuxuu noo sheegaya wax madaxii ka imaaday maaha, waa wax loo waxyooday. waxyi maxaa la yidhahdaa? al-iclaamu biru'ya, wax laga ogeysiiyo mise ogaal lagugu ogeysiiyo ri ahaan. qur-aanka sifooyin badan buu ku soo degayay. markuu ku soo degaya nabiga ilamaa ka daadanayay dhididaa ka imaadayay mararka qaar
marka qaarna waxaa waaye xataa haddii lugtiisa kaloota ay meel kala saarnayd mise ruux kale uu ku hayay ruuxu kale culaysuu dareemayay yacnii qur-aanka markuu soo degayo maaragtaa waxaa u ahaa si zaa'id u culus saa daraaddeed ilaahay subxaanahu watacaala naxariis uu u naxariisanaya nebigiisa wuxuu u soo dejinaya aayad ilaa maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam ma xamili karin qur-aanka dhammaan haddii lagu soo wada dejiyo hal mar labada magac ee uga caansan kitaabka qur-aanka lagu yaqaano waxaa waaye alqur'aan iyo alkitaab labadan ayaana maaragtaa joogtaynayso in kitaabka qur-aanka ah 450 sano ka hor asagoo la soo dejiyey ilaa saacaddan uu joogadan joogo asagoon weli waxba laga bedelin waa labadan waay almaqru'u laa yunsa walmaktuubu laa yubla wax la akrinaya maalin kasta carabka lagu haya lama hilmaamo wax qorana ma lumaan taariikhda qur-aankan haddii aan wax yar ka taabanno qur-aanka aayadda ugu horreysay waxaa la soo dejiyey 17 bisha ramadaan ayaa la soo dejiyey waxaa lagu soo dejiyey nabiga markuu cumrigiisa uu ahaa mise da'diis ay ahayd 40 qur-aankan wuxuu in yar u soo degayay ilaa 23 sano qur-aanka wixii ugu soo horreeyey oo soo degay waxay ahaayeen 5 aayadood oo ugu horreysay suuratu alcalaq bismi illaahi الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم qur-aanka sababta loogu soo dejinayo in yar ayaa waxay tahay si maaragtaa uu nabiga sala allahu calayhi wasalam xaalad kastoo lagu sugan yahay jawaab looga bixiyo in badan qur-aanka waxaad ku arkaysaa yas'aluunaka qul yas'aluunaka waxay ku weydiin doonaan qul dheh nabi allow yacnii jawaab walba oy mase su-aal walba oy la imaadaan jawaab ayuu u noqonayay qur-aanka kariimka ah qur-aanka aayadda ugu dambeysay ee soo degtay fii qowli raajix waxaa waaya aayadda 281 ee suurat albaqara waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون واتقوا يوما ترجعون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تأتي إن لكردقوي إن لقدو لبقي أول إلهي سبحانه وتعالى تنو قرادو muuqaalka xiga ayaan ku ogaani doonaa qiimaha uu qur-aankan uu leeyahay kitaabkan qur-aanka ah qiimaha weyn uu ku fadhiyo oo maaragtaa bilaadanka dhammaantii u leeyahay iyo ninkii ku dhaga qiimaha uu u leeyahay aan ku taabanay doonaa balse maantaytu soomaa intaan ayaan ku ekeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan noo ballanaa muuqaalka xiga